dunida maanta waxaa ka dhacay isbeddel la yaab leh, horumar xooggan oo ay keentay tiknoolajiyadda, gaar ahaan AI. Dad badan ayaa maanta dareemaya walwal, shaqadeyda ma lumin doonaa haddii aanan baranin sida oo nolosheena iyo shaqadeena u fududeyn karo AI. Waxay u badan tahay in aan mustaqbalka noqon doono kuwo shaqo la'aan ah. Laakiin hawlwelin, waxaan ku hayaa 4 tilaabo oo aad raaci karto si aad shaqadaada u badbaadiso, xirfadaada u horumariso, misana aad u noqoto qof aad loogu baahi badan yahay. Dhammaysa muuqaalka, ku soo biir channelkeena oo subscribe saar. Waxay nagu sii dhiirigelinaysaa in aan sii badino casharada dijitaalka iyo update-ka cusub. Mahadsanid. mar labaad soo dhawow, anigoo ah Cabdicasiis Amjad. Waxaan maanta diyaar u ahay talooyin aad muhiim u ah oo mustaqbalkeena shaqo ku saabsan. Haddii aad ka mid tahay dadka isweydiinaya sidee shaqadeyda uga badbaadin karaa AI, muuqaalkan waxaa ku jiro jawaabta aad u baahneed. Anigoo waqti badan lumin, aan ku bilaawno tilaabta koowaad. Faham saameynta AI. Wuxuu fududeeyey shaqooyin badan: qoraalka, falanqaynta xogta, nashqadeynta, xitaa adeegyada macaamiisha. Laakiin AI weli kama adkaan karo bini'aadamka marka la eego fikir qoto dheer, hal abuur, iyo go'aan qaadasho. Faham halka aad adiga qiimo gaar ah ku leedahay, waxa uu AI kuu qaban karo, iyo waxa adiga lagaaga baahan yahay oo aan lagaaga maarmin. Tilaabada labaad, baro sida aad AI uga faa'iideysan karto halkii aad ka cabsan laheeday. Maanta AI wuxuu qaban karaa shaqooyin badan oo hore loogu baahnaa si loo qabto dad badan. Haddii aan tusaale soo qaadano, AI qoro waraaqadaha iyo warbixinada. Tusaale ahaan, shirkadda OpenAI waxay bixisaa adeegga ChatGPT, taasoo suurtagal ka dhigay diyaarinta warbixinada ganacsi, diyaarinta emailada, diyaarinta xogaha, diyaarinta nashqadeynta sawirada iyo muuqaalada, iyo xitaa diyaarinta qorshayaal buuxa. AI falanqeeya xogaha si aad u gaarto go'aan sax ah. Tusaale, shirkad ayaa adeegsatay Einstein AI si ay u falanqeyso xogta macaamiisheeda, taasoo u sahashay in ay fahanto waxa macaamiishu ay rabaan, kadibna ay ka qaadato go'aan sax ah. AI abuuro nashqado iyo sawiro tayo sare leh. Tusaale ahaan, shirkadda Canva waxay bixisaa adeegga Canva AI ama loo yaqaano Magic Design, kaasoo kuu suurtagelinayo in aad ku samayso sawiro ama designs aad tayadooda ay u sareyso, kaasoo loo adeegsan karo xayeysiimaha, warbixinada, iyo social media. Waxaa kuu diyaarinayo AI adigoonan u baahnayn nashqadee xirfad sare leh, ama aysan qasab ahayn inaad barato Photoshop, Illustrator iyo wixii lamida. Hadafkaagu ha noqdo inaad noqoto qof yaqaano sida loo adeegsado AI si aad shaqadaada u noqoto mid fudud oo horumarsan, uusan noqon AI mid shaqadaada la wareego. Tilaabada saddexaad, xooji xirfadaha bini'aadamka uusan AI weligiis qaban karin. Waxaa ka mid ah problem solving, creativity, iyo leadership. Ku dadaal in aad si joogto ah u horumariso xirfadaha. Kuwaasi waa hubkaaga qarsoon ee mustaqbalka. Tilaabada afaraad, noqo mid takhasus leh iyo sumcad shaqsiyadeed. Tusaale ahaan, haddii aad tahay accountant, noqo khabiir ku xeel dheer xisaabaadka iyo AI toolska xisaabaadka loo adeegsado. Haddii aad tahay macallin, noqo bara adeegsada AI si kor loogu qaado waxbarashada. Sumcaddu waxay ku siisaa in adiga lagu soo raadsho halkii aad ka raadin laheeday shaqo. Haddii aad tahay designer, video editor, ama digital marketing-ka kale, aad xoog u saar in aad barato AI toolska si ay shaqadaada u noqoto mid aad u fudud, waqti kooban aad ku qabato, wax badanna aad horumariso shaqadaada. Mar walba isku day in aad update ahaato, aana barato AI toolska ugu dambeeyay. Tusaale hadda aan iska soo qaado, markii aan macaamiil u sameynayo Google Ads, waxaa waqti badan iiga bixi jiray inaan diyaariyo keywordska, inaan diyaariyo headlineska, in aan diyaariyo descriptionka, iyo waxyaabaha oo u baahan yahay oo loo yaqaan assetska. Maanta waxaa wax badan iga caawiya AI sida ChatGPT
iyo kuwo kaleeto kuwaasoo ii fududeeyo inaad diyaariyo dhammaan descriptiga ama keywordska ama headlineska si fudud misane kuwa ugu fiican iisoo xula. mar walba AI wuu ku caawinaa 100% maaha, laakiin wax badan ayuu kaa caawin karaa. haddii aad tahay designer maahan kaliya inaad designkaaga adiga aad si manual ah u create gareyso, sometimes fikrado aad u fiican ayuu ku siin karaa. gunaanad, faham isbedelka AI, baro sida aad uga faa'iideysan karto, kobci xirfadaha bini'aadamka, samey takhasus iyo sumcad shakhsiyadeed. maanta AI waa fursad, ma ahan cabsi. qofka maanta isbedelka fahma waa kan hogaamin doona berri suuqa shaqada. haddii aad jeclaatay muuqaalkan, fadlan like saar oo subscribe dhaho channelka, oo commentiga ugu reeb maxaad ka baratay AI ilaa hadda. mahadsanid.